madaxa xafiiska qaramada midoobay ee xuquuqda aadanaha Sayid Racd Al Hussein ayaa ka digay cunsuriyadda iyo sheesheeye nacaybka oo dalal ka mid ah Yurub ka noqday wax bulshadu aqbashay. Al Hussein waxa uu farta ku fiiqay hadal dhawaan ka soo yeedhay ra'iisul wasaaraha Hungary oo sheegay in aanu ogolaan doonin in sinjiga dadkiisu ku milmo mid kale. Haddaba sheesheeye nacaybkan la sheegay inuu meelo badan oo Yurub ku soo kordhayo ayaanu wax ka weydiinay Maxamed Cabdiqaadir Dirir oo ah gudoomiyaha urur xuquuqda aadanaha u dooda oo ka shaqeeya dalka Norway. Waxa uu waramay Axmed Badar. guud ahaan soo galootiga ama ajaanibta ku nool wadamadan Yurub marka guud ahaan laga eego waxa weeye aad ba wax loo ilaaliyaa marka ugu horeysa inaan wax muuqda oo dib aan la samaynin laakiin way jiraan xadgudubyo fara badan oo gudaha Yurub ka dhaca oo dadka qaarkiis ay sameeyaan waliba xisbiyada midigta fog waana tan sababta marar badan maaragtay in xuquuqda qofkii soo galootiga ahaa meel looga dhaco hadday noqoto xaq qof ahaan u lahaa ama midka qoyskiisa ama midka ummad ahaan guud ahaanba dadka Soomaalida ah iyo dadka kale ee Islaamka guud ahaan ku nool dalalka Yurub dadka u dhashay wadamadaasi waxaad tafaasiil laga siisaa qaabka ay isula nool yihiin iyo isdhexgalkooda iyo qaabka ay markaasi ay wada shaqeeyaan. Axmedow qolada horta isirnacaybka leh ama isirnacayb asal u yahay ka duula badanaaba isdhexgalka waxay u yaqaanaan hal dhinac isdhexgalku ma ahan hal dhinac isdhexgalku waa laba dhinac markii laga hadlayo integrationka waxa weeye anigana inaan wax iga baratid aniguna adiga wax ka barto marka waxay u isticmaalaan integrationka hal dhinac way u isticmaalaan tusaale ahaan hadda wadankan hadda Norway aan ku noolnahay nin baarlamaanka kamid ah ayaa wuxuu yiri magaca Mohammed inuu noqdo magacyada ugu sareeya wadankan Norway ilmaha ama dadka lagu magacaabo waa arrin baqdinteeda leh waa magac waay marka laakiin ama in ma tushabadeeyo waxyaalaha qaarkood oo la yiraahdo islaamka ayaa sabab u ah ama soo galootiga ayaa guud ahaan sabab u ah oo mar walba la yiraahdo wixii xun baxaawale in arrintu noqoto oo aan dhinacii la soo saarin iyo wanaagooda baahintooduna marka ay iyagu rabaan inoo yimaadaan oo qadiyad wataan laakiin marka anagu aan rabno inaanu arrinteeda u gudbino oo aanu kala hadalno arrinteeda ay ku adag tahay inay noo yimaadaan ama naga cudub daartaan mar walba marka inay integrationkooda hal dhinac ka fiirinayaan laakiin aanu mar walba leenahay qaramada midoobeyna aan u sheegayno dadweynaha inuusan integrationku hal dhinac ahayn ee uu laba dhinac yahay. dadka Soomaalida ayagu ku nool dalalka Yurub gaar ahaan goobtaada ku sugan tahay balka waran isdhexgalka bulshada ay la nool yihiin iyo qaabka u dhaxgalaan marka xaqiiqda laga hadlayo isdhexgalku ma badna yani isdhexgalka markaan ka hadlayna waxa weeye wuxuu ka bilaabanayaa luqadiina fahamtid wuxuu ka bilaabanayaa shaqadiina ku dhex jirtid ma badna oo ma la oran karo 100% waa saxan yahay tusaale ahaan waxay soo qaataan inaan ku liidano luqadda inaan shaqooyinka ku liidano inay badan tahay lacagta aan waxa weelayno wadamada saboolka ah ama banaanka Yurub aan waxa weelayno waxaan ugu eedeeyaa inaan wax walba ka eegayno dhinaca marka aan ka taaganahay laakiin iyagu laftirkooda dhinacooda waxaa jira xadgudubyo fara badan oo mataqaanaa ilaan qofkaan kama rajayn kartid inuu isdhexgalkii uu barto si dhaqso ah waqti bay qaadanaysaa adigana waxaa laga rabaa inaad qalbigii iyo niyaddii aad ku aqbali lahayd aad u furtid kaasi wuxuu ahaa Maxamed Cabdiqaadir Dirir oo u waramayay Axmed Badar.